saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. bilowga filimka waxaan aragnaa maamulaha guud ee shirkadda taasoo shaqaalaheeda ku dhiirigelinaysa xanaanaynta xayawaanada. intaa kadibna waxay shaaca ka qaaday in kambanigu ay sameeyeen meel ku habboon taranta xayawaanada. sidoo kalena kambanigu 10 sano kadib wuxuu ku tartami doonaa biladda markaa la bixin doono ee Super Animal Award. kuwa xanaaneeya xayawaanadana sidoo kale waxay heli doonaan bilad sharaf. xayawaanada sida dhaqsiyaha leh u koro iyo kuwa uu caafimaadkoodu wanaagsan yahay waxaa loo iibgeyn doonaa daafaha caalamka. muuqaalka xigana waxaana la tusayaa 10 sano kadib markaasoo gabar lagu magacaabo Minja taasoo ku nool buuraleyda koonfurta Kuuriya ay dhaqaalaysan jirtay jeer weyn. jeertaana magaceedu wuxuu ahaa Okja. haddana waxaan aragnaa ayadoo Okja kaynta la joogta. intaa kadibna markay xoogaa miraha soo aruursatay waxay jeerteeda u sheegtay inay webiga gasho sababtoo ah gabadhu waxay rabtay inay kalluumaysato halka awowgeedna uu dib ugu soo laabtay guriga xilli kastana uu u yeeri karo ayada. intaa dabadeedna Minja iyo Okja waxay seexdeen kaynta. waqti kadib ayayna soo kaceen waxayna bilaabeen inay kaynta ku dhex socdaan. markay guriga u soo dhawaadeenna Minja buurta dusheeda ayay ku simbiri dhaxatay halkaas ayayna ka soo dhacday. laakiin Okja ayaa badbaadisay ayada taa beddelkeedana jeertii ayaa buurta ka soo dhacday. intaa kadibna gabadhii ayaa hoos u soo degtay si ay kaynta uga dhex raadiso jeerteedii. intaa dabadeedna waxay cod dheer ugu yeertay Okja ayadoo u mahad celinaysa sidoo kalena waxay u sheegtay inay ayada fiican tahay. ugu dambayntiina waxay heshay jeerteedii labadoodina aad bay isku marxabeeyeen. meeshaana waxaan ka ogaanaynaa in labadoodu ay saaxiibo isku dhow ahaayeen. habeenkii Minja markay awowgeed la cashaynaysa wuxuu ayada u sheegay in adeerkeed uu dhowaan imaan doono halkan adeerkaasoo ayada horay u siiyey jeertan. sidoo kalena asaga wuxuu u shaqaynaya kambanigii aan ku soo aragnay bilowgii filimka. dhinaca kalena waxaana la tusayaa Minja oo meeshii ay habeenkii seexan lahayd aadaysa xerada jeerteeda sababtoo ah labadooda waxaa ka dhexeeyay xiriir qoto dheer. maalintii xigtana adeerkeed iyo kooxdiisa ayaa yimid gurigooda. intaa kadibna waxay hubiyeen caafimaad qabka Okja. sidoo kalena Minja adeerkeed dhakhtarkii asaga la socday ayuu tusay jeertan aad buuna ula yaabay inuu arko jeer sidaan u weyn noloshiisana ma uusan arag jeer intaan la eg. intaa kadibna dhakhtarku wuxuu sheegay in jeerta nuucaana ay raadinayeen 10 sano balse ilaa iyo hadda uusan kambanigoodu helin jeer nuucaan oo kale ah. taasina waa sababta Okja ay u tahay mid qaasa. intaa dabadeedna dhakhtarkii awowaha wuxuu weydiiyey sida uu u dhaqaaleeyey jeertan iyo sida uu caafimaad qabkeeda uga taxadaray. awowihiina wuxuu asaga ugu jawaabay in deegaankooda ay uga soo guureen jeertan darteed si ay ayada u hesho meel ku habboon oo ay ku noolaan karto. intaa kadibna awowuhu Minja wuxuu u kaxeeyey qabriga waalidiinteed sidoo kalena wuxuu ayada siiyey jeer dahab laga sameeyey. intaa dabadeedna gabadhu waxay awowgeed weydiisay sababta uu alaabtan u siinayo wuxuuna u sheegay in Okja ay ka fogaan doonto ayada sababtoo ah waan iibiyey jeertaada. intaa kadibna Minja waxay u malaynaysaa in hadalka uu awowgeed u sheegayo uu been yahay balse markay xaqiiqada ogaatay aad bay u niyad jabtay. sidoo kalena awowgeed wuxuu ayada u sheegay in shirkaddu isla caawaba ay jeertan meeshan ka qaadi doonto meelo kala duwanna ay geyn doonto. ugu dambayntiina waxaa loo sii gudbin doonaa Maraykanka. gabadhuna markay arrintan maqashay aad bay u niyad jabtay. intaa dabadeedna Minja way xanaaqday sababtoo ah awowgeed arrintan horay muusan ugu sheegin ayada. sidaa darteedna isla markiiba waxay u soo carartay dhanka gurigooda. markay guriga tagtana waxay ogaatay in jeerteedii la qaatay isla markiina waxay u carartay wadada. sidoo kalena waxay ogaatay in jeerteedii baabuur lagu qaatay. sidaa darteedna guriga ayay ku soo laabatay sidoo kalena meesha waxay ka soo qaadatay boombilaheedii iyo lacagtii guriga taalay ayadoo sheegaysa inay soo badbaadin doonto Okja. intaa kadibna awowgeed wuxuu Minja u sheegay in jeertaas ay dad kale la wareegeen sidaa darteedna ay iska ilowda ayada waxna kama bedeli karno arrintaas. Minjana isla markiiba guriga ayay iskaga carartay waxayna aaday dhanka iyo tareen ayayna halkaa ka raacday. intaa dabadeedna waxay gaartay kambanigii uu adeerkeed u shaqayn jiray. dabadeedna waxay isku dayday inay la hadasho shaqaalihii joogay qaybta reception-ka balse cidna hadalkeeda ma dhagaysan. sidaa darteedna waxay burburisay albaabkii laga galaya xafiiska. intay xafiiska adeerkeed raadinaysana waxay aragtay gaari weyn oo meesha looga qaadayo jeerteedii. intaa kadibna isla markiiba si geesinimo leh ayay u soo ciirsatay gaarigii ilaa markii dambe ay soo fuushay. sidoo kalena waxay ku celcelinaysaa Okja. dhinaca kalena jeertii waxay maqashay codka gabadha. dhanka kalena gaari kale oo 2 nin oo wejiyo duuban ay saaran yihiin ayaa soo dabagalay ayaga. intaa kadibna ninkii gaariga waday waxay ku yidhaahdeen na maqal annagu tuuga ma nihine fadlan arrin degdega ayaa jirtee gaarigaaga jooji. intaa dabadeedna gabadha adeerkeed iyo ninkii darawalka ahaa waxay fahmi waayeen nimankan waxay rabaan iyo cidda ay yihiin. markuu gaarigu tuunalka gaaray kadibna nimankii burcadda ahaa waxay joojiyeen gaariga sidoo kalena waxay bannaanka u soo saareen jeertii ayagoo isku dayaya inay qaataan. intaa kadibna gabadhii yarayd ayaa jeerteeda uga yeertay meel xoogaa u jirta. jeer
jeertuna isla markiiba waxay bilowday in dhankeeda ay soo aado. intaa dabadeedna Minja iyo jeerteedii goobta ayay iskaga baxsadeen waxayna gaareen magaalada. intaa kadibna waxay gudaha u galeen meel moola oo dhulka hoostiisa ku taala halka burcaduna ay soo eryanayso ayaga. intaa dabadeedna Minja iyo Okja intay baxsanayeen xaalad xun ayay galeen sababtoo ah waxa ayaga gacanta ku dhigay burcadii, sidoo kalena jeertii gaariga ayay saarteen. intaa kadibna Minja waxay ogaatay in burcadan ay yihiin qolada xayawaanada xanaanaysa. kooxdaanna sidoo kale waxay ahaayeen kuwa xayawaanada jecel, hawshooduna waxay ahayd in xayawaanada ay badbaadiyaan haddii ay wax dhibaato ku timaado, waana sababta ay jeertan uga badbaadiyeen in dalka dibaddiisa loo dhoofiyo. sidoo kalena kooxdan hawshan waxay haayeen 40 sano iyo ka badan. intaa kadibna hogaamiyihii kooxda ayaa Minja u sheegay in jeerteeda shaybaarka la geyn doono kadibna tijaabooyin kala duwan la marin doono. intaa dabadeedna waxay ka qayb qaadan doontaa tartanka jeerta loo qabanayo. sidoo kalena hogaamiyahan wuxuu sheegay in xayawaano badan baaris lagula sameeyay shaybaarka, sidaa darteedna ma fuuda in lagu guulaysto tijaabooyinka. arrintaa darteedna qalab ayay dhagaha ka geliyeen Okja. qalabkaanna waxay uga gol lahaayeen markay Okja shaybaarka u diraan in tijaabooyinka lagu samaynayo ay duubto. intaa kadibna adduunka loo soo bandhigo. kambanigaanna sidoo kale wuxuu lahaa xeerar, hadday Minja xeerarka aqbali weysana laabka looma diri doono jeerteeda. intaa dabadeedna Minja waxay sheegtay inay rabto ayada iyo Okja inay dib ugu laabtaan gurigooda, balse maamulihii kambaniga ayaa been u sheegay ayada, wuxuuna ku yidhi waan kuu ogolahay arrintaas. sidoo kalena wuxuu gabadha u sheegay in tijaabada ay bilaabatay markii qalabka dhagaha loo geliyey jeerta. intaa kadibna ninkii biyaha ayuu ku booday goobta ayuuna iskaga baxsaday, halka Minja iyo jeerteedina ay meesha joogaan. isla waqtigaana waxaa meesha yimi booliska, halka shirkadana ay arrintan wejigabax kala kulantay sababtoo ah waxay ku guuldarraysatay in gabadha iyo jeerteeda ay kala fogeeyaan. maamulaha shirkadana markay arrintan aragtay qorshe kale ayay dejisay, kaasoo ahaa in Minja tartanka lagula kulansiiyo jeerteeda. sidaa hadday dhacdana shirkaddu ma ceeboobi doonto, sumcaddeedana way hagaagsanaan doontaa. waxaan rabno ayaana ka samaysan doonaa ayaga. intaa dabadeedna Minja adeerkeedii shirkadda u shaqaynaya wuxuu ayada ku qanciyey in ayada iyo jeerteeda la geeyo New York sida ay shirkaddu asaga ku amartay. intaa kadibna warbaahintu waxay bilaabeen inay sawirro ka qaadaan ayada sababtoo ah gabadha mardhow waxaa lala kulansiin doonaa jeerteeda. intaa dabadeedna Minja intay diyaaradda saarnayd waxay akhrinaysa buug Ingiliish ah kaasoo luuqadda lagu barto. intaa kadibna waxaana la tusayaa Okja oo la geeyey laabka, sidoo kalena xayawaano kale ayaa meeshaa joogay, balse dhakhtarku aad buu ula yaabay markuu arkay jeertan, sidoo kalena wuu ku farxay. dhinaca kalena kooxdii kale ee xanaanada waxay bilaabeen duubistooda, halka dhakhtarkuna uu laabka ka soo saarayo jeerta. kooxda inteeda kalena shaashadda ayay ka daawanayeen asaga. mid ka mida kooxda ayaana sheegay in tijaabadan aysan diyaar u ahayn Minja sababtoo ah been ayaan idiin sheegay aniga. intaa kadibna hogaamiyihii kooxda ayaa garaacay wiilkaas, sidoo kalena hawshooda ayay joojiyeen sababtoo ah arrintan waxay caqabad ku tahay shirkadooda. dhinaca kalena dhakhtarku wuxuu diyaariyey hilibka Okja si dadka kale uu u dhadhansiiyo. qof walba oo ayaga ka mid ahna aad buu ula yaabay markuu ogaaday hilibkeeda inuu caafimaad qabo, sidoo kalena dhadhankiisa uu fiican yahay. dhinaca kalena Minja si qasaba ayaa loo diyaariyey ayada, sidoo kalena hogaamiyihii kooxda xanaanada ayaa meesha yimi, wuxuuna ayada u sheegay inaysan walwalin ayada iyo jeerteedana uu badbaadin doono. mar dhowna sidoo kale waxaan daaha ka qaadi doonaa wejiga dhabtaa ee shirkaddan, maadaama aan hayno caddaymo nagu filan kuwaasoo aan ka duubnay shaybaarkooda. dhinaca kalena shirkadda bandhigeeda ayaa bannaanka ka bilowday, sidoo kalena Minja meesha ayay timid markii lagu dhawaaqay in lala kulansiinayo Okja, balse jeerteedii way aqoonsan weysay ayada. sidoo kalena dadka waxaa shaashadda looga soo bandhigay tijaabooyinkii qaldanaa uu dhakhtarku ku sameeyey jeertan. intaa kadibna dadweynihii aad bay uga caroodeen arrintaas, isla markiina dhakhtarkii ayay soo weerareen. sidoo kalena Okja waa la xakamayn waaye waxayna weerartay Minja. intaa kadibna hogaamiyihii kooxda ayaa bir ku dhuftay jeerta si uu u badbaadiyo gabadha. intaa dabadeedna Minja ayaa birta ka qabatay asaga sababtoo ah ma aysan rabin in la waxyeeleeyo jeerteeda. intaa kadibna Minja dhagta jeerteeda waxay ku aragtay qalab ku jira, haddana naagtii maamulaha kambanigan ka ahayd wax walba way ka baaba'een ayada. taasina waa sababta ay maamulka shirkadda ugu wareejisay walaasheedii ay mataanaha ahaayeen, taasoo lagu magacaabo Nancy. intaa kadibna Nancy ciidamadeeda waxay ku amartay in la soo qabto dhammaan dhallinyarada ka shaqaysa xanaanada xayawaanada. dhinaca kalena Minja iyo jeerteedii goobta ayay iskaga baxsadeen, balse isla markiiba dhammaantood waxaa qabtay askartii. intaa kadibna wiil ka mida kooxda ayaa sheegay inuu been ka sheegay Minja aysanna ogolaan tijaabadan, sidaa darteedna hadda gaari ayuu meesha keenay si uu u badbaadiyo Minja iyo kooxda inteeda kale. dhinaca kalena Nancy waxay joojisay dhammaan tijaabooyinkii
falkii ay samaynaysay walaasheed sidoo kalena waxay xirtay shaybaarka ayadoo amartay in la qalo dhammaan xoolaha meeshaas jooga arrintaana waxay ka dhigan tahay in Okja la qali doono hilibkeedana suuqa loo iibgeyn doono dhinaca kalena Minja markii habeenkii la gaaray waxay tagtay xarunta shirkadda meeshaana waxaa joogay xayawaano badan halka Minjana ay xayawaanada ka dhex raadinaysay jeerteedii sidoo kalena waxaa ayada la socday hogaamiyaha inta dabadeedna Minja waxay aragtay Okja oo meeshaan loo keenay si loo qalo markay gudaha meesha u gashana waxay aragtay hilbaha jeerta oo meeshaan lagu warshadaynayo inta kadibna waxay aragtay nin qali raba jeerteeda balse sawirkeeda ayay tustay inta dabadeedna waxay asaga ka codsatay inuusan ka dilin jeerteeda dhinaca kalena Nancy iyo askarteedii ayaa meesha yimi inta dabadeedna waxay gacanta ku dhigeen hogaamiyihii kooxda inta kadibna Minja waxay ayaga ku tiri fadlan sii daaya aniga iyo Okja halka Nancyna ayadoo xanaaqsan ay ku tiri hadda jeertaas aniga ayaa leh kaliyana waxaan ayada ku sameynaya waa ganacsi ee wax kale ma jiraan hilibkeedana suuqa ayaan geyn doonaa si aan lacag badan uga sameeyo ayada inta kadibna hogaamiyihii dhalinyarada ayaa Nancy ka codsaday inuu si gaar ah ula kulmo ayada aysanna halkaan uga tagin ayaga laakiin Nancy markay baxaysa waxay amartay in la dilo Okja halka Minjana ay ayada ka codsatay inaysan sidaas samaynin sidoo kalena waxay ayada siisay jeertii dahabka ahayd oo awowgeed horay u siiyay ayada Nancyna markay dahabka aragtay aad bay u yaabtay inta kadibna waxay la heshiisay Minja ayadoo shaqaalaheedii ku amartay in loo sii daayo Okja inta dabadeedna Minja iyo jeerteedii waxay iskaga tageen xaruntan intaysan meesha ka taginna jeer kale ayaa ilmaheeda banaanka u soo saartay jeertaana Okja waxay ka codsatay inay ilmaheeda u badbaadiso maadaama ayada la dili doono sidaa darteedna ilmaheeda inay u badbaadiso ayay ka codsatay Okja inta kadibna Okja ilmihii ayay afka horay ugu sii qaadatay waqti badan kadibna waxaana la tusayaa Okja iyo Minja oo dib ugu soo laabtay dalkooda sidoo kalena meesha waxaa ku aragnaa jeertii dhallaanka ahayd haddana gabadhu sidoo kale waxay dib ula midowday awowgeed hal gandheer oo ay badbaadinta jeerteeda u soo martay kadib halkaas ayuuna ku soo dhammaaday filimkeenna haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biro subscribe dheh waa ku mahadsan tahay la joogistaada